dowladdu sarreynta qaanuunka inay ixtiraamtaan rabnaa bes ganacsatada magaalada joogto tahdiidka lagu hayo maalin walba godka looga yeera oo hay-adaha inta la yimaado la leeyahay soo xira ee shaqaalaha xagga keena waa la iskiriin garaynaa keen taleefankaaga adiga daba kac gurigaaga igey waxaasoo dhan dowladu waa yeeli kartaa waxaasoo dhan dowladu waa yeeli kartaa laakiin goormay yeeli kartaa qaanuunka markay u soo martay yeeli kartaa buugga yarkaa dastuurka aha tilmaamayo goormaa qofka muwaadinkaa la baari karaa gurigiisa goormaa la baari karaa isaga goormaa xorriyadda laga qaadi karaa see looga qaadi karaa war waddadaas le u soo mar waddadaas ha la maro beledkan dowladdeenna maalinna qaanuunka kuma leexanin sideedaba ayadoo ku leexan karta xataa oo wax u diiday aanay jirin saas uguma leexan jawaari ha la rido mukhtaar roobo ha la soo xiro maxaa waxa baydhabasaan waxaad fiiri mukhtaar roobo dowladdan wiilasha maxkamadaha ay u magacaabatay u jooga ayaga inay uga goyso muxuu ahaaye warqad lagu soo qabto dowladdu ma awoodi waayo ethoobiyan iisoo qaba diyaarad iisoo saar qarar meel ii giri ilaa maanta waa ku jiraa wax lagu haysta qaanuun lagu haysta lama yaqaan iyo cid haysa wax waa gar daran yahay iyo waa gar leeyahay iyo maba joogtaba laakiin qofka xorriyaddiisa haddii laga qaado ayadoon sharciga loo marin xabsi ma ahana waa afduub waayo qofkaas waa la afduubta lama xabisin xabsi waxa waaye dowlaa iskale qaanuunaa lagu galaa qaanuunaana looga soo baxaa xabsiga laakiin haddaan qaanuun lagu galaynin qofka xorriyaddiisa lagu qaadaayo xabsi ma ahana waa qofoo u afduuban yahay ama kooxoo u afduuban yahay dad badanaana sidaas ah dad badana xabsiyada ku jiro oo sharciga waqtigu tilmaamayay iyo sidau u tilmaamayay u xirneen dowladdu waxaan leenaha qaanuunka ku dhaqato waa qodob waa ku dhiirigelinaynaa mar kale iyo mar kale iyo mar kale ixtiraamka dastuurka iyo qawaaniinta dalka waa ku adkaynaynaa waana ku dhiirigelinaynaa dadka soomaaliyeedna waa ku dhiirigelinaynaa waxaan qaanuun ahayn inay iska diidaan waxaan qaanuun ahayn maya inay dhahaan iska diidaan waa ku dhiirigelinaynaa annagaana bannaanka la taagan waxaan qaanuun ahayn waa la diidaa ama dastuur aan ahayn ama sharci